sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan hadda kolkaan ku soo dhaweyno madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi culus oo hogaaminayo oo nooga yimid magaalada muqdisho madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay dadka reer Puntland iyo shacabka reer Boosaaso intooba madaxweynaha soo booqato u timaado aad bay ugu faraxsan yihiin runtii annagana sharaf weyn bay noo tahay xukuumadda dowladda ahaanba madaxweynuhu booqasho rasmi noogu yimid طبعا مناسبة ومهمة وحوية وفرتانك ريبوركا بوساسو بريتو لكن طبعا مدحنا دوي مادو وحبضان وكاله ولحريرة نبضة يجد سعود كنبضة الصوماليين يهرب مركا يو مستقبل كصومالية إن لقى وضح الله وحلا سكوي ديو شعبي يسوي أركو وفكر كودو دقيستنا ليش أيه كجرته إن شاء الله marka fursad aad iyo aad u weyn si weyn oo sharaf badan Soomaalinimo iyo qadarin badan ay ku jirto ayaana loo soo dhaweeyay waana ku faraxsanahay waana ka mahad celinaynaa sida madaxweynuhu u sheegay mar haddii madaxdu isku timaado kadibna muxuu ahaa in la iswarsado oo danaha Soomaaliyeed guud ahaan la iska warsado iyo dabcan gaar ahaan horumarka ballaaran ee ka socda Puntland in warbixinteeda nala siiyo annaguna aan muxuu ahaa taladeena iyo ra'yigeena aan ku beerino sidii horumarkaasi u sii ballaaran lahaa oo maxaan ku yiraahdaa guud ahaan Puntland dhinaca horumarka maadaama stage-kii ama heerkii horumarka hadda ay ku jirto in maxaan ku yiraahdaa dowladda federaalkana doorkeeda wixii ay ka qaadan karto ay ka qaadato hadii la yiraahdo taas waa midaas waxa kale oo inta dheer munaasabada weyn ee airportkan cusub ee aad iyo aad muxuu ahaa u quruxda badan casriga ah ee ka hirgalay magaalada Boosaaso waa horumar iyo guul u soo hoyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo gaar ahaan dadka reer Puntland waa mashruuc aad iyo aad qiimo u leh oo muddo dheer oo soo socotana muxuu ahaa macna badan ku soo kordhin doono horumarka Puntland hadii la yiraahdo khaasatan magaaladan magaalo ganacsi ah xeebta ah maxaan ku raahdaa aad caamka ugu ah dhinaca ganacsiga haday tahay dhoofinta waxyaabaha Soomaaliya laga dhoofiyo xooluhu ugu horeeyaan iyo waxyaabaha kala iyo haday tahay soo dejinta badeecado badan oo dalka Soomaaliya qaybihiisa kala duwan iyo dariska intaba gaara marka taas bay sii xoojinaysaa infrastructure-ka ka jiray magaaladan waa horumar waxa sidoo kale aan u nimiday ayaduna inaan la wadaagno farxadda dadka reer Puntland iyo dowladda Puntland intaba muxuu ahaay sanad guuridii ka soo wareegtay doorashadii madaxweyne Cabdiweli oo ayaduna waqtigeedii la joogo oo aan leenahay muddadii madaxweynuhu uu talada hayay Puntland gaar ahaan iyo guud ahaan Soomaaliya intaba wax weyn ayaa hoggaankiisa uu ku soo kordhiyay dowladda Puntland ay ku soo kordhisay marka waxaan leenahay madaxweynahana si gaar ahaan balyo dowladda Puntland guud ahaan iyo shacabkana waxaan leenahay munaasabadaha aad iyo aad haddii la yiraahdo aan ka wada qayb gali doono ayaan u nimiday